abiyuusnaa oo magac laygu abiyuusay kuwa yacni igu fiirsada iyo kuwa aan maxaa la yidhahdaa wax ka qabanin iyo kuwa xumaatada igu sameeyey qofkaasoo think about it inaad aniga aad kubahayga aad ku jirto anoo kale inaad tahay yacni ilmahaadiyaa lagaa qaatay lagugu maxkamadeeyey guriyaa la geystay 6 sana nin islaameed ayagoo ajaanibka ahay la noolaayeen kadib waa lagaa qaaday dalkii baa laga dhoofiyo laga tarxiilay waa isdileena lagu soo yiri ka bax baraha bulshada la yiri abiyuuskaas oo dhan hadduu kugu dhici lahaa maxaa dareemi lahayd maxaa mar hore arrinkan u xallin weysay anaa dhalay waxbaha ii qaban sharcigayga adaa iga qaaday magac adoo dad magacaada isticmaalaya ayaa yuus gareeyay please ceeb ma ahan duruufta igu taala fiir wajigayga inaan god ka soo baxa qiyaama loo maleeyaa indhahii yacni cudur iyo xanuunan ka qaaday ku fakar inaa sidii adoo xabsi ku jiro awlaadaadii lagaa qaaday lagugu maxkamadeeyey yah aad oo xabsi dhex fadhiya hooyadaha dhimatay geerideeda oodan maanta ka qaybgeli kara dhinaceeda dhulka dhigi karin yacni kuu soo yeeri lahayd taasoo kale ku fakar adoo kalaan ahay yacni maalinta ilaahay hortiisa la taagan yahay miqdaari 50,000 سنة إلهي وكويدينا شرفت عدد قبيل كي أتكوار دينيسو حق يعني لا تبدلوا حق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ما أقام هذا الكيغ مسيح كرئي آيات قرآن كي الله يقع فيه بليز إلهي يقع بسو من فضلا أنا أدالي إلى مدلين أذو إلى مدلين قبيل كراد إلى وذاكتا سباب لك الصومالي ده مسلمين تأه وإمانك إن حريساناي هيك هرجوكسن هراء تقول حريسويس أنا أدري لعك رادي ما حوغان ليه وحمالتي وإعوريا مسي إيش هذه قفير ستي المهارية الحاسك هذه يقول قالا بقتي لعك هذا ورنعسو يقول دعي هير آن كوب شاهد قدوايو هير آن عاكو كاديو هير آن باو دحسيحدو هير وحان سومري آن وحان كو أفروايو waxaan ku suxurta waayo ana qof weyn aan toogsan waayo ana og Soomaali hadaan qof iraa'i afuri oo ajir iyo xasana iga raadsaleen aan sheegtay hayso waa kaaga baxay idaaf muslimiinta caawinaysa hay hor joogsanin aab iyo dhiman malahan duruufta waa wax ugu dhacay waan qabaa alxamdulillah alxamdulillah kal shukr waa qadarka ilaahay igu la dhacday ima dhalin ilama aadan dhalan hooyaday ma haabay ma iga qalleen hadaa muslimnimo طلنمو أهلنمو يقصو قرمتو الحمد لله الشكر لله إلهي بأجر كيد هل تسأل الإحسان إلا الإحسان كاسينيا والله سيدان أجرينا إلى هذا نقين ربي قام قدرت سكرتي عركي قشي مركان مقلق قبل هذه النور سكرتي وواحد هذا سيداس إندها داود ترتيب ما يدار قف إما تلا مجرو أنا اسم تلا قف متلت وانت مجرت داود وحاجة تامر كان قلبي qof dambo awood ku sheegan doonto ma jirto daahir cali soo haduu meesha soo galo daahir waxaan ka sugaynaa gabadhaasay tahay noosha iyo haday dhimato anaga ma qasbayna gabadha laakiin u baahana aabaha xaqiisa aabaha haduu qalad gala xitaa aabaha haduu qalad gala xitaa xaq uu leeyahay waa xaqiisa inuu helo laakiin xaq ma aha inuu mid aan ku dhaqmaan warqabiil iyo macalaha qaraabo iyo waxaas oo dhan waa u dhamaatay intaas uu rafaaday hadii xalli waayeen no more aib astur because aabahan dhibaatooysan la u jeednaa distaan waa arintaas in la kala saaro daahir wallahi been ku sheegay zero aan taagana aan distaan bismillah ma ka daawud aan ku warrabo aawo kala skotay ku kacda maaha waa skotay inay dhigtaa daawud sababta ku sheegaya daahir ma kontarooli karti sokorta hadaad faraxdo iyo hadaan naxdo way kacay labadaba ma aha waxaad ku taxwaa ruwaa isdaji tartiib isdaji shaydaanka qanaad بيعد وان بليليا او انكو بشارينا قبل ونوش الحمد لله الحمد لله الله صدق قفوا ماشي المقعد ka sheegtay ninka midana fariin buu isoo qoray text message oo WhatsApp isoo dhigay ninka midana abahan buu isoo wacay ani maadaama aan oy guud ahay oo hore ka dhiiqaysan jiray hadda ani ma qabiilkiisa ma dhiiqaysto qofna aad sugma فارس أمك الغلط مركا وحوي الله بريمير thank you وحوي إنك صايلها الله حدوا صايد صايد أفكيس بكبير
وينوك هاي سجن لكن واحد يلاقيه نين كان عيب مسلك لما بابي عيب مش أنت على البابي يعني مع واحد مش عيب طالع مش تعدي يلا يكمل كراين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كبدن ما dhageysan karo maxamed daawud baa la yiraahdaa wiilkan baraha bulshada waqti dheer ku jiray waa aabbo Soomaaliyeed Mareykanka lagu xiray ilmihiisa dacwo ku oogay dhowr 6 sano buu xirnaa hadda xabsigu ka soo baxay homeless uu noqday ayaan dhawad waxa loo soo dhajiyay gabadhaadu way dhimatay hadda waxa la soo sheegay in gabadhiisi nooshahay aan sheega ma garanayo yani saan isku dulminayno dulmigan qof dulminaysid ma ogtahay inuu adiga ku dhitaysan meel ku yaalo oo laga jaraay ani qalbigay kuma soo dhacaysa qof dulmi way waxa ogahay wax yar intaas leey qof hadan ku sameey biri in aniga igu dhacayso marka xanuun aan ogahay biri inuu soo gaarayo way aan qof ugu sameeynaya ila mid ah aabayaasha dulminaya ilmay leeyihiin waxay rabaan ilmahooda baari inay u noqdaan ilmahooda dadka u fiicnaadaan ilmo kale iyo dad kalena way dulminayaan ilmahaygu wuxuu yiri gabadhayda 6 sano ayay nin ajaanib la nooleen والله وادب حتى Soomaalina dad is dulmiyana dad aad isku dulmiyana dad dulmiga isku jiidana dad aan isku naxariisan baana dad naxariisti ka suushana dad is dulmiyana dad haday isku horimaadaan isnacbana dad qofka oohinta iskugu hiliyana dad farxadda iskugu nacbana qof faraxsan qof haduu arko Soomaaliyeed ma hooyan karaba qofka faraxsan farxadu diidaya marka aabahaas ba hadii gabadhaasi nooshahay wallahi Soomaali hadii laga bixi lahaa dad badan ka bixi lahaa magaca Soomaali iska deyn lahaa hadii meel looga goosto laga aada la yaqaano dad badan ka tagi lahaa hadii ba gabadha nooshahay lagu yiri aabahaas way dhimatay laleeyahay qabiilkeena aad jaaifeynaysaa qabiilkeena dib u keenaysaa qabiilkeena wad qabiil xuya qabiil war qof kasto 2 mitir baad leedahay dadka qalbiyadooda waa madoobaadeen ilaahay u kalmeeyo umada